الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن داودياشا قيمة هي قدرينتا مدن وهلكا نغلا سوعتان وليبان شو تدوباده walba aad kala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliya stuudiyiisa magaalada Minneapolis ee wadanka Mareykanka daawadayaal dhageystayaal liibaan show toddobaad walba waxaanu ku soo qaadanaa waxyaalo bulshada Soomaaliyeed oo xiiso geliya ha noqoto dhanka fanka iyo waliba siyaasadda hidaha iyo dhaqanka horumarka jaaliyada ee wadankan Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota haddaba toddobaadkan liibaan show waxaanu ku eegi doonaa iyadoo ay ahayd munaasabad loogu dabaaldegayay sanad guuradii labaad ee farshaxanka Soomaaliyeed ee lagu furay museum ay yiraahdeen ee gobolkan Minnesota xalay waxaa ka dhacay gobolkan Minnesota munaasabadaas oo runtii dad aad u fara badan ka soo qayb galay isla markaasina fanaaniin qaali ah iyo waliba abwaano halka dalka Mareykanka qaarkood iyo gobolo kale ay ka kala yimaadeen ilaa iyo Canada si arrimahaasi aan u guda galno toddobaadkan liibaan show waxaa marti inoogu ah abwaanad runtii aad ugu dheer dhanka heesaha gabayada waayo hidaha iyo dhaqankeena Soomaaliyeed caawa waxaan filayaa in dad badani ay ka kici doonaan aysan fadhiga hata iska dhaafaan ay jiif ay ku daawan doonaan barnaamijkan liibaan show marka aad daawataan hadii ay yiraahdo idinkoo waxyaalo badan aad xasuusan doontaan waliba xalay marayna la joogtay fanaa abwaanada xafladii loogu dabaaldegayay sanad guurada ee museumka gobolkan Minnesota waxa ay fariin u direysay waliba odayadu de gabaya loo diraayo iyo hidaha dhaqan ayadoo cunugii haysa waxaan filayaa waxyaalo fara badan inaad caawa aad ka wada heli doontaan balse inta aanan u guda galin barnaamijkaas oo dhan ila soo dhaweeya abwaanada codka macaan oo gobolkan Minnesota iyo waliba liibaan show marti inoogu ah waa tuma Safiyo Tusmo ila soo dhaweeya Safiyo soo liibaan show waan ku salaamayaa adiga iyo telefishinka qaranka Soomaaliya aad baan idinku mahadcelinayaa kulanka dhalinyarada waan gartay Safiyo dabcan waxaan filayaa in aad gobolkan Minnesota iyo waliba safar dheer inoo soo gashay anigu xaas ahaan liibaan aad baan ugu faraxsanahay abwaanad runtii xalayna wacdara ay tustay iyo haatan liibaan showna la fadhida alayla jaaliyadu dadkana daawanayana waxay leeyihiin bal liibaan wuxuu sheegay bal caawa kama bakacay liibaan show iyo TV qaranka inaan daawado marka hore safarkaagan dheeraad noo soo gashay muxuu ku saabsanaa safarkaygu wuxuu ku saabsanaa rooyad baan wadnay waxaan u nimidnay barnaamijkii xalay adigu baad goob joog ka ahayd hidiya dhaqanka lagu qabtay magaalada Minneapolis sanad guuradii labaad وانا كو مركي يقول ريسي Minneapolis إمادو magaaladiina inkastoo ay hargab iyo dhaxan iyo roob iyo xiskuuda jira ay soo dhaweysay haddana wallahi waxa weeyaan aad baan uga helay magaaladiina Soomaalidiiba ku badan waxa isleedahay Soomaaliya joogtaa midda kale waxaan idinku hambalyeynaya waxaan arkay idinkoo habla cadaan maradii saddex qaydka soo xiray xalay waa dhaqankii aygan dhaqankii oo isbiiciidi xiran yihiin oo عنابي لو حدايو حسلada yaa yar baalasheeyo wax yar oo kalarka ka mid ah gartay marka safarkaygu saas buu ahaa aad bal waran markaad aragtay intaas oo halqiyo Soomaali ah goorma kugu dambeysay horta soo hor istaagtay weligay ma soo hor istaagin anu hortaan isku ka sheegay from baadiyana gartay meel shan qof ka badan ay joogto ma soo joogsanin xalay markii la igu yiri more than 800 people by stage ka jooga waxaan dhawanaana kurma isku dhajilay arkay meesha ahayd marka it was wallahi waxay ahayd wax aad u qurux badan oo man feeling inay qisadan oo kale ay Mareykanka dhacayso dad badan oo Soomaaliyeedna way dhiirigelisay inaanu anagu dalkayagii ka maqan haddana aanu dhaqankayagii soo bandhigi karno oo nu ma aragtay maayarkii iyo sanadradii gobolka iyo waan Soomaaliyeyn rabnaaba inta muslimtay oo xijaabka xidhan badiyaabaysa marka wallahi barnaamij lagu farxo ay ahayd aad u qurux badan waa karti runtii aad baan kaaga mahadcelinaynaa safarka dheeda soo gashay iyo waliba habeenada kale sanadka kalena marka soo laabataan meelahan meel ka weyn aad arki doontaan waliba wada cadaan u badan hadii ay yiraahdo waxa tahay abwaanad runtii alifta heesihii hidaha iyo dhaqanka iyo waliba gabayana ay sameeysid bal inaga waran gabayada iyo heesaha aad sameeysid maxaa kugu dhaliya inaad kuwa urutid horta anu abwaan isku sheego gartay waan yara taataabtayo hadii abwaaniin la soo xulo meel la soo joojiyo ma soo raaciyo
gabay aan anu sameeyeyna caawa ma soo bandhigayo waayo gabay aan anu sameynin ayaan wataa waayo kay u baabi'i doonaa de markaan ormaad aragtay gabay uu abwaan hore oo qaaliya sameeyay iyo afar xabon anu wado iskuma imanayaan taas wuxuu noqon doonaa mar waxaan ani leeyahay kaliya la wado soo gali doonaa laakiin waxa igu dhaliyay waxaan ay qof hidaha jecel iyo dhaqanka jecel sidaa baan kuu sheegayna waxaan u dambeeyaa dadkii baadiyaha ku dhalan jiray oo dhaqankii u xiist mala anaa u dambeeya magaalada waxaan ku dacaydaya qof kasta dee adu ma sheegi kartaa kaas masasad baa lagugu soo koriyey anagu caani geelaan soo cabnay marka hooyada iyo aabahayna dad suugaanta aad u jecel bay ahaayeen gabayo waxaa jira uu tiriyey awowgii tiriyo afariiska ah afreen dhihini ahaa maxaa la yidhahdaa jacbur baa la yidhahdaa malanjeena waan yidhahdaa ayaa jiray marka suugaanta inaan ururiyo waxa ay ku kalifay danta ay ku kaliftay dalkii ma joogno dadkii dhan waxay noqdeen dad whatsapp iyo maxay iyo say wallahi iyo magacyo loo bixiyay marka sheekadan uu soo bandhigay Cismaan oo xalay ayaan aniguna in yar hoosta ka wadwada xaafadaha dhexdooda iyo caruuraha iyo isagu tiisu adiga aragtay laakiin anagu waa in yar caruurta lagu sasabaan wadwadna maadaama adigu aad gabayada aruurisido aad tiri runtii Soomaalidu markaa hadda aad dhahdid baadiyaha markay sheegaan waxay dhahan waa run baadiye kama imaanbe waxay isku dhigaa inay Minnesota saraha dhaxdooda ay ku dhisteen qaarkood bay adigu adaaba qiranaaye gabayada markaad xasuusido waayihii Soomaaliya caruurta markii hooyadood ay ciyaarsiinayso haatan gabadha halkaan ku guursatay oo aruur ku dhashay de wax kale ay ma taqaan caruurtooda ay u sheekaysaa ay ku ciyaarsiisaa marka si ay ayaguna inooga faa'iideystaan maxaad ka xasuusataa marka waxyaalihii waayadii caruurta sida haddaba habeen hore saan u jeedo halka wiilkaagaad haysatay oo waxa ku ciyaarsiinaysay bal taabar inooga horta hooyooyinkii hore anagu ma gaadhin kuwan anagu dhalayna anagana ma gaadhi doonaan waayo anaga qayd bal nagu soo koray hooyada iyadoo na xambaarsan oo maaragtay uumigeeda nagu baxay oo bay haddana noo heesi jirtay annagana hadda waxaan ku sidnaa karsid baba ku ridnaa markaan rabno ku laalaadina iyo kii kale lagu riixay dhabarkii la saaray soo socdana technology-ga wax kale u soo wadaayo hooyada ka fog bay ku sidi doonaan marka heesaha hadaan kaaga taataabto wax yar way badan yihiin kolba dumarku waxay ku heesi jireen cimilada qaar baa qabiilkooda ugu faani jirtay mid baa waxay leedahay ilmaha markay u heesayso waxay rabtaa inuu guursado hablaha tribe-keeda markaas waxay leedahay haddaad gaadhood gabowdo hooyadee haddii gulu yidhaahdo haddii gulu yidhaahdo liibanow tolkay waa goobe ka guurso iyadoo ilmaheedii aan magaca ka soo qaad laakiin iyadoo ilmaheedii isticmaalaysa magaci ayada tolkay waa goobe ka guurso marka waxay kolba siday tahay marbay faaninaysaa aabihii tolkiisay faaninaysaa midda aabaha la amaanaya taabal iyaga dabcan waxaa laga yaabaa niman badan in la amaano iska jecel hadda lama amaano laakiin marka hore waa la amaano jiray abiyo ababa samowa hooyadeeyadeera wanaagsano adeerka kama tegi karto because waayadaasi aabuhu hadduu dhinta adeerka damaali jiray hadda laakiin meesha doona bay ka dhacaan adeera wanaagsano hooyadey hawaayin wardheero hawaayin wardheero abe hooyadey hawaayin waxsiisa hooy hawaayin waxsiisa hooyo hooyadey hawaayin walaala dhowr hawaayin diinteena wanaagsan hawaayin Soomaali weynta hawaayintaas wadi jireen marka hadda ma malayo ilmo loo heeso aad runtii waa xasuus dad badan baa waxaan filayaa inay xasuustaa runtii ay dhihi doonaan ama inay mataqaana oo haayo kugu imaan doonaan oo training ilmaha mataqaana halka kan waad aragtay daycare baa la wada furay daycare-ku ilmaha wax un baan loo dhiibaa meel inay ku boodboodaan mooyee sidaa looguma ciyaarsiiyo
kalgacal la'aan bay ku korayaan dadkaas marna daykerka aad geyso sidii xalay yani cunugayga odayga ka maqnaa daykerka geenay mar xalay toole gabay aad u tirinaysay oo cunugii ahay sidoo odayga aad u diraysay fariinta oo cunugan aan u jeeday oo mataqaana saa u haysatay bal gabayga bal inooga waran adigoo markaan qayb ka qaaday laakiin waxaan jecelnahay inaan noo dhimaystirtay gabaygaasi erayada waxa iska leh Xasan Sheekh Maxamed gartay Allah ha naxariisto riwaayad horey loo dhigayna uu ku jiray kulli fanaaniinta waa barihiba nuuriyaal weydiin doona magaceedii waan ilaaway oo ii sheegtay hiba laakiin waan ilaaway gabayga haddaan soo taabto laxankii baan maansu ahaa awal sidii waa loo afka looga tirinay laakiin laxan waxaan saarnay ay leeyihiin reer awda leeyihiin laxankan wuxuu ahaa waa local baan dhihi karaa iyaga iskale inta badan aroosyada ku soo bandhigaan laba reer oo markay iskuursadaan ayaa way kala safanayaan oo safna xagga bay fadhiisanayaan safka wiilkana dhinac ka gabadhana dhinac marka reerka wiilka la weeraysanaya waxa la leeyahay ma tusbax baad sidatay satii allaad ku timid ma arbacad dhalatay ma ayaamaha taqaan ayaa ku sheegay shankaroona inaan tahay iyagoo ku luqeynaya ma tusbax baad rogatay misatii allaad ku timid ma arbacad dhalatay ma ayaamaha taqaan ayaa ku sheegay shankarono inankayaga reerkii inanka ayaa ku doodaya taas oo inankayaga saad ku soo heshay kuwa kale soo qaadaya reerkii inantana waxay leeyihiin mati ma dheertahay oo timirawdal ma u egtahay ma afmadooda ilku qalin ma kacadiin idinka daawadaye ma ku deeqday inantayadu marka أنا حسوقت اللحن كودي بصاري قبل أصلاً بودعي قبل دنيكي بقى كم قام صادر كيسي دبكي حالي هيستي أنا أقول ديك كركة كان فرد قصنا وكشقية ودقيقة يقام مقرس باستر كيو يقول راجع أفريقيا مركوني كتشوف وصاب على واحد لاي فايبر يو كم بقنيسي قال هذا الشباب مركا وقدر كيس حالي إنسان أدري هاس كي من دوبي وصاب كم كل مركا سام بودعي وحيل هذا هاي سيدني يا دسيلا مجيلي سيدني يا دسيلا مجيلي ديا حمويه ضبيلا لقى شرير ديا حمويه ضبيلا لقى شرير هل يا دوني دانت كان كدورتيو هل يا دوني دانت كان كدورتيو ودنا هاي هجايا يبو غديجي ورسيد هل تجدي قاعدة يا هذه مدي كتال نفتيدو هالساني جوان هو سودين أداي أرتاجن ولا أبتكوا يا أداي أرتاجن ولا أبتكوا يا أبني يا مالي وانكوا هداك يا ورد مسحب أمي الراحة وانكاري ورمات كودايو في قبا دباي غوريا يو على صدام على دباي غوريا يو على صدام على هدان كوهلي لها تفكو ورما هالمرتي عرارتو قلبي ولدو هيركان كبارو هاساوي يا ماما تحدان كوهميو هنان كانوا ودلها هبانو سوقرو وراق هايبادو معان دنبال هيريسان هوغيس والليبا كايلان هذه يقهر بوست حاشات كهلي لهيد كوما هلماميني
kuma hilmaamine af Soomaaliga akraday kuma hilmaamine halkaan jooga adima badan. wow ya salaam codkaaga taana halka laga meelay geerid maxaan dhahaa Allah ilaa tusmo caadi ma aha waxaan filayaa daawadayaal dhageystayaal gabayga runtii tusmo abwaanada inoo tirinaysay oo waliba habeenkaana ay odaygii ka maqan oo ayadii ilmaha haysa oo fariin WhatsApp-ka ay ugu diraysay maantana Liibaan Showba WhatsApp ma taqaana halka ay ugu dirtayo bal idinkuna nala qaata waxaan filayaa inaad ka wada hesheen hadii ay bayiraahdo runtii markaad qaadaysay wajigaaga waxaan ka dareemayay qashuuc iyo farxad waxyaalaha xasuusanaysa maxaa kamid ahaa waxa kamid ahaa aan laftirkeyga waxaas baan ahaa keenahay odaygana ka soo maqnaa so in the same time isaga babyga marka live-kii baan taagnaa runtii su'aal dadka ay wali ay isweydiiyaan oo laakiin la yaaban maadaama adigu aad tahay abwaanad runtii fankii iyo waliba hidaha dhaqankiina iyo gabayadii aad aruurisid fanka Soomaaliyeed xagu ka soo bilaabmay isleedahay markaa fanka Soomaaliyeed horta 100 sano ma gaadhin gabayadu laakiin malaha Soomaalidu intay jirtaba way jireen waxaan isleeyahay 75 sano meelahaas inuu hadda marayo wuxuu ku soo bilaabmay qaraami dadku barigi hore balwa iyo heela iyo waxba isku madadaalin jireen laakiin fanka in lagu heeso oo hees lagu luuqeeyo dadku waxay ku qiyaasan 70 sano 75 sano waxa jiray nin la oran jiray deeqsi warfa iyo waxa bilaabay gabadh la oran jiray Khadiija Ciidar عبدي وحو أهانين دراولا جبوتي وكيني جري حمول هي ركاب وحو كيني جري بورما إسلام مركا هادانا دادكي حمول كيبو قادة جري أدو جيد كاس وشقين جري قريات كمرا قريات كنا واجد آدو حنو مرنا وابورو انت بورو ليدنا وابورو دادير حاقا كلنا وابعادو هدو روب دانا وبابورتو إيدقان مركا مالين معلومها كمدا وشان يتدباتنا سنو آدا إيقسو ريكتي أيا واحد علي بابوركا كجبي ميل قريات كاس وكو جبي oo boon u dhow magaalada boon dhammeer u dhow waqtigaas dawad qiyaas karta Soomaalida 75 sano maybe Soomaaliya oo dhan 5 gaari bay lahayn hadii la isku soo wada duubo gaarigi baa jabay towan iyo hadaaban towanayna lahayn baan u maleeyaa adii baaburkaasi isaga iyo krishbaygiisa un baa sameynaya waxay noqotay inuu baaburkii bulku dhawaad وبرتي كليو حيلادنا انت بدن waxa keena shucuurta keena inuu ku luuqeeyo waxa keentay baaburkii jabna marka wuxuu ku bilaabay laylay ayuu ku bilaabay in the same time waxa gaariga la saarneyd gabar markii dambe fanaanad noqotay isaga la heestay oo loo dhinjiray Khadiija Balwo marka wuxuu leeyahay balway hay balway balway hay balway waxay balay haddii quruxda dalayga qarsho Khadiija Balwoy qaxbaan odhanay waxii la qoraa quruma u hadhee miyuu hadalqii ma leeyahay laylay 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 laymune taswiir marka waxa ka keentayna hawsha bariga la qad heesta aan naftirka u maqli jiray marka 75 sano ka hor hay ay baaburka jaway waa cilkiisu keenay isla markiina waa iska soo daba dhacday dawadiga arkaya ilaa maanta wow leeyahay marka ma jiraan marka gabayo kala asaga sii tiriyay oo sii waday marka abwaanka way jiraan heesihiisa iyo gabayaantiisa waxay ku qoran yihiin buug la yiraahdo Cabdisulimo waxa dhacday inaan buugaasi nasiib u helay adiga maxay gabayo badan iyo waxaas ka hayo laakiin wuxuu u baahan yahay waqti Cabdisulimo u gaara hadda waxaan ku taaganahay wixii ka duwan aad waxa jirta kaas hadan ku qaaday waqti Silimo iyo Balwa ilahayn gaartay maadaama laxankii yahay laxan
intaas oo dhan soo jiro qiimo leh laxankii ugu horeeyay lagu dhawaaqa Soomaali ku heestan oo yahay waxaan ula tagay Hiba Maxamed waxa hiway anu inta baan ku raftaayana qanaay maad in cusub wala shay igu dirtido maadaama laxankii Cabdi Suleymaan intaas san ka soo wareegtay marka ereyo waxa jira cusub oo ay Hiba Nuur samaysay ereyada leedahay isagoo next time waxa la iman doonaa udbihii iyo dhigihii iyo dhiisha caanaha wata laakiin hadda waxaan jecelahay inaan waxoogaa yar un ereyada qaarkood aan qalcad ka mid ah ku maqashiyo Hiba iyadoo meelo badan bay maraysaa ilaa Berbera ilaa Banaadir iyo waxba kama tegin degmooyinka Soomaaliya laakiin intii ereyada gaadhigu ku jabay baan intan ku egeysiin doonaa gartay hay bana hag maqshiyo bilowgii fankana bayaankiisi bulshadu baranbab kaluqayneed bartanka boramiyo banka geriyad babuurkii ku jabay markuu bil fadhiyay laylay 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 lalalala libano awalay udheerayay laylay bartiisi limiyo Khadija balwoy ay heesta ka bilaabeen ka baydhi mahayne laylay 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 lalalala libano awalay udheerayay laylay bomban ka dhexba qidonayon bagee baryajo qidoonayay laylay 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 lalalala libano awalay udheerayay laylay waliba ku darso libano reer bon waxay leeyihiin bahal la yiraahdo sole وانا waxaan meelaha tirsan ee dadka wax yaqaan wax bartay markay sheegayaan aanan qabyaalada laga aqoon anagu hadaan reeboon nahay bay ku oranayaan cid ka soo degan hal sore la yiraahdo in Soomaalida kale cunina way yaqaan marka waxaan rajeynayaa in maalmo kullu nagaada reeboon meeshooda ay waa santigiin ay tigin alaylaha mar baan ka wareysan doonaa buuga oo dhan runtii aad nood keeni doonto hadii ay bayiraado marka maadaama adigu dhankii gabayadii iyo runtii wixii arag heeso marka adu nafta ka horta heeso ma dhageysata anu heeso waan dhageystaa hay maadaano hooyadii baa dhageysan jirto dhagtanka soo maqla jiraan u maleynaya gartay wadaniga jacaylka siiba wadaniga tan jacaylka wadaniga maanta baan ku jirnayo jacaylka noo soo qaba heestee adigu markaad guriga joogtido isku mashquulsid markaas leedahay heestee ka hesha jacaylka xaqiisa horta hadaan jacayl bilaabo armay dhamaan weyda meesha rabtana la tagtay waxa weeyaan anu horta waxaan jecelahay heesaha jacaylka Hiba Maxamed aad baan salaamaya qalbigayga Maxamed ha heesaheeda khadrada hirba igu soo xigta marka Hiba Maxamed waxaan sameyn jiray heesaha intaan soo qaato heesa badan ayaan waxa laga yaabaa inaan 5 heesood Hiba leedahay aan hal hees ka dhigto laakiin hadda waxaan ku soo qabanaya qalcad heesaheeda hees ka mid ah kaftan ba jacayl qaba kulanka waxita murtiba sakicise intaad kana dooyo kordhi maalis leedahay kaxbanaaye moogtahay kaxbanaaye moogtahay Hiba Maxamed laga yaabaa inay kabiga ka saar stage ka adii joogto maanta heesada ku ciyaarayo ma sha Allah cod bad ku leedahay miya marka wad in ridi la is thank you aja cod bad ku leedahay marka dhanka wiilashana ka baad dhageysan jirtay marka wiilasha wallahi wiilal badan ma dhageysan jiray sida Allah naxariistay Maxamed Salmaan oo kale Maxamed Mooge heeso badan waan dhageysan jiray wiilasha labadaas laakiin fayfarkayga عادي عاوة هستاد قلت لك شيء shacabkana daawanayo maadaama barnaamijkeenan uu ahaa hidaha iyo dhaqanka hees aad isleedahay oo hidaha dhaqankii iyo ku saabsan aad ugu tala gashay dadkana daawanaya maxay tahay
horta barnaamijkan caawa haddaan heeso soo qadan lahayd waxaan soo qadan kartoon dhan oo guriga yaalay waan isdaba gelin lahaa liibaan show laakiin nasiib dee waxaan kusoo talagalay inaan saa ka baxnaan way ahayd laakiin hal hees baan insha allah wataa waxaa la yidhahdaa dhaqankeenii haluminina يا اللي فيه هستا مركز الرياضة وحى إسكالي أبوان ليراهدو عبد محمود كايت أو رهر جيسا لحن كأي موسيقى أنا وحى إسكالي يوسف مؤمن سبحانه ونسلامي على بدو دي واحد دقيقة هنا هرجيسا وهاك داوديال هستاسي أيانو جعلنا هاي إنا نلد داوان دونتاني وان فيلا يو إنا تكوذي هلي دونتان تسمو رنتي مرلوات baan ka codsan doonaa inaan u guurno hageeda ama in ayadu mataqaan halka noogu timaado si barnaamijyo badan iyo gabayo badan ba ay noo qaado hadii ay bayrado balse nala dhageysta heestaasi
joogtay dhul shisheeye joogtay dhugta waanadaydo dhaan raaca beentiyo dhaldhalaalka gaalada hawdhaga nuglaanina dhaqankeeni haluminina 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 dhaqankeeni haluminina waa hagaag waxaan filayaa heestaasi safiyo tusmo abwaanada ay noo qaadaysay weliba waxay tidhi dhaan raaca beentiyo dhaqankeena halumina waxaan filayaa in abwaanka uu la hadlayo dhallaanka soomaaliyeed oo qurbahan sarahan dhaadheer intay arkeen ay is yidhaahdeen inayba leeyihiin oo qaarna surwaalada dabada ka ritayo dhaqankiiba ka tegay waa riwaayadii habeen hore ay ka hadlayeen gabdhana sida ahaa lagu jilayay allay lahee heestaa ciddii dhagaysata weliba hees cusub caawa ayay ugu horeysaayo abwaanada tusmo ay noogu qaaday stuudiyaha telefishinka qaranka soomaaliya waxaan filayaa heesahaasi iyo heese kalena ay mar dhow ay noo qaadi doonto haddii eeba yidhaahdo waayo heesahan oo kale waxay runtii aada iyo aada ay u taabanaysaa bulshada soomaaliyeed especially gobolka Minnesota runtii tusmoy heestan runtii abwaanku waxaan filayaa inuu ma aqaan inuu dibadda ka yimid iyo asaga laftirkiisaba ma wuxuu arkaad isleedahay dhalaankii oo runtii isbedelayo mar walba mise kuwa dhaqan celis baa wadankii lagu geeyay wallahi wadankeeni dad badan oo la dhaqan celiyo la jooga gartay dhaqan dhoofinku waa la yiraahdo kuwan badhaamina way jiraan gartay laakiin dhaqan celisku de waa hataa hadaan u arkin qofka abwaankii uu qiyaasi kara qof dhulkiisa meel ahayn ku dhashay inuu kullayba iska noqonayo de dhaan raaca uu sheegay gartay runtii aad baad u mahadsan tahay sida sharafta leh adigu mataqaanaa aad nagu soo booqatay gobolka Minnesota iyo weliba stuudiyahana Liibaan Show xalay tole surprise gabay ah baad runtii ninka mas-uulka ka ah maarayaha hogaamiya farshaxanka Soomaaliyeed halkaas surprise oo asaga laftirkiisba uu qaadan waayo intuu aamusay wuxuu ka hadli garan waayo saa u jeedin markuu taagan yahay markaa fiirisid marka bal gabayga bal inooga waranba gabaygaasi Rajabti Baskale gartay laxanka iyo maadartay midahaba haye laakiin magaciisa baan ku soo darnayo Soomaalidu inta badan iskuma maxaan ku iskuma jeer garayaan iskuma dhiiri geliyaan ninkan wuxuu sameeyay wax aan la filayn buu sameeyay oo maadartay waxyaalihii uu keenay aniga ku baadiyo ku faanaya bay igu dambeysay waqtiga igu dambeysay aan sheegi karin alaabtu keenay iyo sidoo kale dhacay marka waxaan decide gareynay maadaama aanu nahay dadkii la soo casumay inaanu tusno inaan ku garab taaganahay arintaasi oo nagu hambalyeynayno saas baan ku soo bandhignay deewad arkiisay bal maadaama xalay tole intaasoo dadna ay ku daawanayeen qaar baa laga yaabaa inaysan meesha joogin bal Liibaan Show si ay uga faa'iideystaan bal gabayga bal surprise-ka ahaa bal nagu soo celin hoyale 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 hoye hoyale 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 hoye hoyale 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 hoy ummad yahay habkeeni horiyo heerka nolosheena taariikhda lagu horiyen cidil maamaynin haddaan hoos u eegon wixii hore ka faloodo dhalintii dawacnayd haatu fuga yeedhay dhalintii hawaawigu lunshee hawa kale raacday dhalintii hugabadaadise hiiftay dhaqankooda dhalintii habeen dhaxabartee sooba hooyan weyd
dhalintii habeen dhaxa bartee sooba hooyan weyday dhaqankii hallaabe wax badan haybna lagu waayay dhaqankii haraatida kufrigu haraha u yeelay dhaqankii la haylhaylaye hilinka weydaartay dhaqankii hanfiga loo baxshee meel hadh laba waay dhaqankii hanfiga loo baxshee meel hadh laba waayay inuu lama huraan yahay haddii haatan la ogaaday oo halistiga adhiyo xumi hiilka rida yeeshay oo heegan loo yahay sidii loo hirgelinayo waa harow maraan gaadhnayo haybadiyo khayr waa harow maraan gaadhnayo haybadiyo khayre abbaha hogaanshow markuu himilada keenay wiilasha hanaanka u qabtee dib u habaynaya heeryada xilku qaadayo hadafka loo jeedo inta kugu hareer taagane heelan baan nahaye hambaliyo salaam baan cismaan hoo ku leenahay ya salaam alaylah cusmaan sida aan u jeeday runtii habeenka ujeedaaba siduu noqday asagaaba hadli waayey wuxuu yiri weliba waxaan ka baqaa inaan dhulka ku dhaco habeenka waa hagaag daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow waxaanu soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkeeda caawa fanaanada abwaanada runtii safiyo tusmo de lagama dhergo aniga waxaan jeclaa weliba caawa oo dhan inaan iska fadhiyo mid inay ii soo qabato soo sidaa maaha idinkuna waa ila qabtiin baan filayaa marka waxaan filayaa inaan mar dhow aan u tagi doono si barnaamijoo tahana ah ayaanu idinkaga soo gudbin doonaa haddii ayba yidhaahdo haddaba toddobaadkan intaas ayaanu kusoo gabagabayn doonaaye bal ayadu maadaama halkani fursad aan u siiye gobolkan Minnesota ay marti ku tahay de fagaaraha adaa iskale markan fursad baan ku siinayaaye de caawad adaan ku dhageysanaynay de cidaad hawada ka salaami lahayd iyo liibaan show waxaad ka sheegi lahayd iyo horta liibaan show ma daawataa liibaan show waan daawadaa hay waxaan maleeyaa fiyuuska inta badan anaa iska leh barnaamij kasta soo baxa waan fiirsadaa qisooyin macnaha cajiib ah cadar iyo dawladeedii marka loo noqdaya ana waxaan rabay inaan agency ku noqdo dawlad kale aan dhisto oo aan idhaahdo ma aragtay la nagama soo qayb gelin markii dawladda la waday anagu ma joogin lacagta hagbada in baa maqan aanu ma aragtay wax la nimaadno calankeeda daahay marna diracla moodkaana gabay aan soo wadnaa ma arkaysaa ka hadda laba dawladood inay noqon doonto dumar ku leeyihiin ayaa soo malaynayay waa waxay sheegaysay markii ugu dambeysay cadar in xildhibaano fara badan oo mooshin badan ay ka keeneen way ii sheegtay marka ma anagu dawladooda ma waafaqsanino waa dawlad laga yara adag yahay 24 kan tagay ma la yiraahdo baa igu casumay baarkin waxay leeyihiin de crowded ah oo baabuurta ku badan tahay oo markaas coffee gadateed baxaysa $2 bar laga qaadaya haduu ma soo galay wadiyaabisa meesha tagtay marka Soomaalida reer Minneapolis way naga wanaagsan yihiin marka dhinac eegto oo maalin dhow xildhibaano iyo maybe president idin soo baxaya reer Minnesota one batiin la ma aragtay la idin kuma gaadho xagaasi annaga wad naga horeysiin aad bad nooga horeysiin diinta markay noqoto dhaqankiisa aad u keenteen sidaad iskugu duuban tihiin aad community-ga leedihiin waxyaalo badan baad ma daragtay ka leeyahay amaanta badan siday runtu tahay anigu waxa weeyaan runtan sheegaya runtan ka hadlaya waxaan u maleynayaa wiilan u footayno inuu ka soo bixi doono gobolkan oo dawladda kaalin weyn ka ah si fiican marka waa ta aragtay wadooyinkeeninis bismillah waxa iga yaabsiiyay
taleex street Somali street Oromian aragna anagu ma qabno lama soo gaadhin wali laakiin waa idinku daba jirnaayo qof markuu dadaal la yimaado soo dadkan way ku daydaan insha Allah inaan anaguna magaalooyin kale aan keeni doono Columbus حكي سلامت مية دي لوجي حكي سلامت مية لوجي تحسب وينه هرت واحد سلام يا أمة الصومالية دوران إذن يهين قرب الشوك أنا هيك تجيني كانت سلامت وين بعد لا ده هاي الصومالية دي قابي ولا نقدين قرب الشوك قل الشوك قحوت الشوك قحو الشوك يو اسكود اللي فوق قاعد أردني الصومالي ودم أمة الصومالية السلامية وحن سلام يا فاميلي جيجا والدين تيجي ولا له هي فاميلي جيجا دمان اسكود ضد هذا كلا صار يقلف كده ويبدين هين family iyo friends iyo Soomaalida waan isku wada dhiman salaanta duuban baan dhamaantood siinaya salaanta ugu weyn aad ku siinayay tirada qaranka Soomaaliya aad baan ku salaamayaa assalaamu alaykum waa hagaag daawadayaal intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa toddobaadkan Liibaan show anagoo ku soo qaadanay waliba fanka iyo suugaanta waa taan idinka ballan qaaday jirnay mar walba alaabtan oo kayna idinkeeno iyo hidaaya dhaqanka tan iyo kulantideenu dambe oo xiiso leh waa anigoo aabahada Liibaan show iyo telefishinka qaranka waxaan isku dhaafaynaa السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته